waxay isku dayeen inay gaaraan meesha ugu hooseysa dhulka iyo halka uu ku dhamaado, balse maxay kala kulmeen? Kani waa godka ugu weyn dunida oo uu bini'aadam qoday. Marka ay hoos u qodeen ilaa iyo 12 kiiloomitir, waxay la kulmeen waxaynan weligood arag oo qalqal galiyay nimankii qodayay. Taasi waxay sababtay in gebi ahaanba la joojiyo godkan oo ilaa maantadan afqaawan. Waxay ku tilmaameen in albaabadii jaxiimo la gaaray sidii loo qodayay. Sheekadan ayaan ku eegi doonaa sababta loo qoday iyo wixii lagala kulmay. Haddii aad nagu cusub tahay ku soo biir boggeenan Xuseen Xaaji Xasan, muuqaalkana sii faafi. Halkan oo ah magaalo xeebeedka Kola ee dhacda waddanka Ruushka, waa meesha laga qoday godka ugu weyn dunida. Sanadkii 1970kii, dowladda Ruushka waxay bilowday mashruucii ugu weynaa abid oo ahaa in dhulka hoose